مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaynu kaga hadlaynaa xalqada tan ama kulankan iclaamka ama warbaahinta ama saxaafadda sida hadba loo yaqaano noocyadeeda mid ka mid ah oo ah ta aynu ku tilmaami karno waxaa la yidhahdo saxaafadda togan ama tilmaanta wanaagsan. inta markaa aynaan halkaa gaadhin waxaa muhiima bay ila tahay in aynu bayaamino marka horeba yani waxaan idhahdo iclaamka ama qalabka warbaahinta ama mediaha luqo kasta ha noqdee baahida ka dambaysa oo ah marka horeba noloshu guud ahaan in ay u baahan tahay macluumaad xog iyo warar sugan oo lagu duulo ama lagu howlgalo bini aadamkan ka maarmin xitaa yani makhluuqaadka kale ilaahay abuuray xayawaanka yani horarka ah haaribka ah ee wax dilaya ee wax ugaadhsanaya ayaan ka maarmin kan la ugaadhsanayo ayaan ka maarmin waad arkaysaa inuu meesha uu marayo iska eegayo marka hore iska ilaalinayo sahan tegayo mujtamacaadka bini aadamkuna kuwii hore ee yani bilowga ahaa ama bidaa'iga ama primitiveka luqadii la doonaha lagu sheegay ahaa iyo kuwan maanta yani lagu tilmaamayo inay horumar yani weyn meel walba ka gaadheen mar walba shayga aan laga maarmin waxa weeye xog iyo macluumaad iyo war waata soomaalidu in badan tidhahdaa war la helyaaba tala la hel marka baahida caynkaasa qeyb weyn oo ka mid ah ayaa iclaamka ama mediahu uu daboolaya. marka taariikh ahaan marka la eego dee siyaabo yarar bay ku bilaabantay waraaqo la qorqoro oo dabeedna meelaha lagu dhashiyo qaar markaa magaalada lala maro oo la qaybiyo idaacaduhu intaana iman yani sida waxa la isugu sheegi jiray waxaa ka mid ahayd in ama durbaan la tumo ama madfac la rido dabeedna halkaa la isugu soo ururo wixii warahe la doonaya in laisu gudbiyo sidaa la isugu gudbiyo. reer yurub waxaa dhaqankooda ka mid ahaa waxa la yidhahdo town crier yani ninka qaylinaya ee warka soo gudbinaya ee magaalada warka gaadhsiinaya ama boqorka ha ka yimaado ama meel kale ha ka yimaado ama dawladda markaa meesha xukumaysa ha ka yimaado. marka mar walba yani warka iyo gudbintiisa iyo soo ururintiisa iyo faafintiisu wax yani muhiim ka ah nolosha ibni aadamka ay ahayd. waktiyadan iminka markaa la joogo iclaamkii ama mediahii ama qalabkii warbaahintu wuxuu marayaa heer weligii aanu gaadhin oo waagii hore waxa ay ahayd qoraalka ayaa ugu horreeyey warbaahinta ama qalabka warbaahinta qoraalka ah jaraa-idka la yidhaahdo. markii dambe ee marconi ninkii loola jiray uu idaacadaha iyo warkan gudbaya isagoo aan dhagaatiyo iyo waayo raacayn meel fogaadhaya idaacaddiiba ayana markaa soo baxday. waxaa lagu kordhiyey markaa telefishinka aakhirkana de waad hamaraysa maanta halka adiga oo iska jooga inaad yani gurigaaga aan ka bixin ama xafiiskaaga meeshaad doontona aad war gaadhsiin karto meeshaad doontona aada war ka heli karto. guud ahaan markaa iclaamka caynkaasa ee lagu tilmaamo ka togan waxa weeye mid mas-uuliyad ku fadhiya isla markaana ah awood waa awood mediaha ama qalabka warbaahintu waa awood
awooddaasi haddii si tagan loo isticmaalona wax wanaagsan bay keenaysaa haddii si qaldan loo isticmaalana yani xumaan iyo yani wixii la ayaa looga dhaadhacayaa fitnay keeni karta waxaa lagu garan karaa inay awood tahay boqor ka mid ahaa boqoradii faransiiska qarnigii 16aad louis-ga 14aad baa la odhan jiray dowladdiisoo dhan buu soo shiriyey baarlamaankii xukuumaddiisii garsoorkii intii arkaantii ama tiirarkii dowladdu ka koobnayd qolada markaa saxaafadda oo markaa aan loo roonayn ama iclaamka laakiin dee markaaba dadaalayo inay war ururiyaan inay gudbiyaan ama ka warramaan ayaa iyana meel koda ah oo ka baxsan halka lagu shirayey soo fadhiyey nin ka mida markaa dadkii meesha fadhiyey ayaa tilmaamay yonder is the fourth state waa taa suldadii ama awooddii afraad waa taa awoodda fulinta oo boqorka iyo dowladdiisa xukuumaddiisa ah awooddii sharci dejinta oo baarlamaanka ah awooddii garsoorka ta ku afari wuxuu waxa weeyaan buu yihi waa iclaamka ama media marka inay awood tahay awoodduna mas-uuliyadday leedahay ayna muhiim tahay inaan lagu takrifalin inagu markaa ka muslimiin waxyaabaha ugu muhiimsan marka akhlaaqiyaadka la eego dhaqan wanaagga ay tahay in lagu wado warbaahinta ama qalabka warbaahinta ee togan waxaa ka mid a yani thaqaafata tabayun hubsashada waxaa la idhahdo wax hubso hal baan siistay in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanu baa ilahay qur-aankiisa inoogu sheegay nin yani ujeeddo leh ama aan si wanaagsan waxu wadin oo faasiqaya hadduu war idiin soo gudbiyo ama soo laliyo fatabayanuu ha la yska hubsado marka war walba in la hubsado waxa dhacay waxa ay yihiin in la hubsado waxaase xitaa waxa uu keeni karo haddii la sii daayo qaabka loo gudbinayo dadka lagu gaadhsiinayo qaab wax awari kara oo wax kharibi kara iyo qaab si togan oo wanaagsan wax u gaadhsiin kara waxaasoo dhan in la hubsado waxa weeye waxaa ka mid ah akhlaaqiyaadkeeda in wax waliba isu miisaanaadaan oo warkan ka tabinaya ka loo tabinayo oo yani caamata shacab ah iyo ka laga tabinayo inta midna aan lagu xadgudbin in qofku uu noqdo qof xaqiiqada raadinaya in dadka sharafkooda iyo magacooda iyo dhowrsoonaantooda aan meel lagaga dhicin waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin akhlaaqiyaadka warbaahinta togan waxaa ka mid a in la eego maslaxadda waxbaa dhacaya waxaasi markaba in laga warramo waa loo baahanyo la ogaado waxa dhacaya laakiin marba waxa ay dantu ku jirtaa in la dedejiyo oo wixii markiiba la sheego si waxyeelada ka imanaysaa ay markiiba u koobnaato wax looga qabto marna in loo kaadiyo oo lala sugo waktiga ku habboon si waxyeelo ama yani magaranaysaa dhibaato aan loo baahnayn aan uga dhalan marka qofka iyo dadka iyo qalabka ku jira warbaahintaas aynu ku tilmaamayno ta togan akhlaaqiyaadka ayna raacaan qofna aanay la coloobin qofna aanay soo dhawaysan wax walbana laysku dayo ibni aadam baa layo qaladaad la waayi maayo laakiin lagu dadaalo in mar walba xaqiiqada iyo runtu waxa ay yihiin la gaadho ninna marka aan looga hamran lana dhowro markaa waxa dadka isku xidhaya karaamada iyo wanaagga qofku uu leeyahayna ama dadku uu leeyahayna guud ahaan aan lagu xadgudbin